Mararka qaar waxaa wanaagsan inuu iska aamuso qofka intii uu dadka u sheegi lahaa dareenkiisa, sababtoo ah way ku dhaawacaysaa kaliya goortii aad ogaato inay ku maqli karaan balse aysan ku fahmi karin. Waxaan ka xiran karnaa indhaha waxyaabaha aynan rabin inaan aragno, laakiin kama xiran karno qalbigeena waxyaabaha aynan rabin inaan dareenno. Aad bay daruuri u tahay inaan xushmayno dareenka dadka kale. Kala fogaanshuhu ma baabi'iyo xiriirka. Ma aha inaad aragto kaliya qofka jacaylka idinka dhacayo. Muhiim ma aha joogitaanka qoloftaada ee waa waxa qalbigaaga ku jira. Dadka inta badan ilmeeya ma aha dad jilicsan. Oohintu waa sida qalbigaaga uu hadlo goortii bushimahaaga aysan sharixi karin xanuunka aad dareemayso. Waxaa jira hadallo u waxyeeleeya qalbiga si ka daran seef lagu dhiftay. Waxaa jira hadallo qof ku noqda warag ku taagan wadnaha noloshiisa oo dhan. Ka taxadir hadallada aad dadka kale kula hadlayso. Jeclaa waxa uu qalbigaagu rabo, ma aha waxay indhahaagu arkaan. Ha ka welwelin waxay dadka kale ku yiraahdaan ama ku arkaan. Kani waa jacaylkaada, ma ahan kooda. Jeclow ama ka tag qalbigu dhaawacay, balse marnaba ha dhaawicin qalbigu jecel. Run waa loo ekaysiin karaa dhoolla caddayn iyo qosol been ah, laakiin marnaba lagama been sheegi karo ilinta iyo dareenka dhabta ah. Ha u ogolaan xiriir hore oo noloshaada ah inuu burburiyo farxadda mustaqbalkaaga. Nabarka iyo xakintu waa inay ku soo xasuusiyaan wixii aad ka soo gudubtay, ma aha halka aad ku socoto. Dadka qaarkii marnaba ma lunto quruxdooda, si kasta ay u weynaadaan da'na ugu darsanto, sababtoo ah quruxdoodu ma ahayn wejiga ee waxay ahayd qalbiga.